waxaa maanta magaalada Saylac lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu caleema saarayay ugaaska beesha Ciise Mustafa Maxamed Ibrahim. munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay dad aad u tiro badan oo ay ka mid ahaayeen hoggaanka bulshada iyo madax xagga siyaasadda ah oo ka kala socday Jamhuuriyadda Djibouti, Itoobiya iyo Somaliland. wariyaha BBC-da Axmed Saciid Ciga ayaa goobjoog ka ahaa xafladaas. caleema saarkii ugaaska 19aad ee beesha Ciise maanta ayuu rasmi ahaan uga dhacay madal weyn oo ilaa 3,000 iyo ka badan qaada oo teendho oo kala laakiin sidii aqal Soomaali loo sameeyay magaalada Saylac oo sida dhaqanka uu Ciisuhu yahay 6 oday oo la sheegay in ay 6 aqal ee Ciisaha ka kala socdaan waa duubabka amase jifooyinka kala qaybsamaan Ciisuhu ayaa u xiray dabeetana mashxarad baa ka dhacday alalaas baa ka dhacay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti Dilayta Maxamed Dilayta oo isagu diyaarad gaar oo helicopter watay wasiiradii Djibouti badidoodii way joogeen generaaladii ciidamadu way joogeen oo xataa generaal Sakariya taliyaha ciidamada Djibouti oo macawis ka gashan oo caadi ah oo mid xafladda ka soo qayb galayaan salaanada aan arkay. waa hagaag dhegeystayaal intaasna ka gudan war wixii dunida naga soo gaadhay intii ni dhageysatay barnaamijyadeedii maanta.